guddiga dacwadaha cashuuraha Somaliland ayaa maanta magaalada Berbera tababar uga furay qaar ka mid ah waaxaha cashuuraha. Tababarkan ayaa waxa uu la xiriiraa xuquuqaha waajibaadka cashuur bixiyaha, habraaca furashada go'aanka cashuureed ee u dhaxeeya waaxaha kala duwan ee dakhli ururinta dawladda iyo cashuur bixiyaha. Waxaana tababarkani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil, kuwa degmada Berbera iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta guddiga dacwadaha, waxaana faahfaahin ka bixiyeen ujeedka tababarkani. aan ku qabanna maanta magaalada Berbera gaar ahaan Hotel Mansour waxa uu daaray yahay guddiga dacwadaha cashuuraha ee qaranku waxa ay go'aansatay in tababar ku qabato magaalada Berbera. tababarkaas oo ujeedadiisu tahay in cashuur bixiyayaasha iyo cashuur qaadayaasha oo ah cidda dawladda u xil saaran cashuur qabashada iyo laamaha kale ee dawladda waxaana loogu talagalay guddidan in ay soo gaabiso ama ay ka garnaqdo nidaamka dacwadaha cashuuraha oo ah nidaam loogu talagalay in si kooban uu qofka cashuur bixiyay uu ugu dacwoodo oo aanay nidaamkii dheeraa ee dacwadaha loo furanayay ama maxkamadaha idaariga ah aanay marin, si ay u koobnaato oo qofka ganacsadihii uu fursad yar u helo ayaa loogu talagalay in dacwadaha looga furto. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maamulaha kastamka Berbera, maamulaha cashuuraha bariga ee gobolka Saaxil, waxaanay soo dhaweeyeen tababarkani. guddidani waa guddi uu u baahnaayeen cashuur bixiyuhu. wasaaradda horumarinta maaliyadda way taqaanaa haddii cidi ay cashuurta ay kala habsaanto dariiqa iyo halka ay u marayso oo ay u gudbinayso xeer ilaalinta ay ka bilaabayso ilaa ay maxkamad la soconayso. laakiinse cashuur bixiyuhu muu haysan jirin adeega cid u qabata. keenayna insha Allah haddii alla ka dhigo marka uu inoo dhamaado si tababarkeenana marka inoo dhamaado in nooga soo bixi doonto oo ay idinka faa'iideysan doontaan haddii alla ka dhigo aqoon idinka afacda. waxaa gabagabadii halkaasi ka hadlay maayirka degmada Berbera iyo barasaabka gobolka Saaxil, waxaanay ka qaybgalayaasha tababarkani ay kula dardaarmeen inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo tababarkani. waa baahi weyn oo gobolkan ama degmadani aad ugu qabto in qofka muwaadinka uu helo marka uu saluugo qaabka uu cashuurta u bixiyo iyo sida cashuurta ay ugu waajibtay inuu ka dacwoodo. waa baahi weyn oo qabo waxa kaliya isticmaalnaa kolley anaga kastamka ayaa u soo celiya dadka cashuuraha wixii ka khaldama dib baa loogu celiyaa dowladda hoosena dib baa loogu soo qoraa wixii loo qabtay dib baan ugu celinaa. isku mid maaha muwaadiniintu, qaar baa dabagala oo waxooda qaata, qaarna halkaasi ka tagaan halka mukhaliska unbaaba dib u qaataa. marka qofka muwaadinka waxaa doonaya inuu dareemo oo uu garto waxa ku waajibay waxay yihiin sax ma yahay mise maaha. runtii guddida ka garnaqa dacwadaha cashuuraha waxay aad iyo aad ay ugu wanaagsan tahay dadweynaha cashuur bixiyaha ah. taasoo aan laba qodob soo jeedin lahaa. cidda innaga inoo xil saarane mar walba xeerarka iyo waxa waajibinaya inay aad u akhriyaan sidii ay halkan ka sheegeen sharci yaqaanadu ama garyaqaanadu. dadweynaha cashuur bixiyaha ah ama cashuur bixiyaha waxaan soo jeedin lahaa in si idinkana culaysku idinka yaraado ama maxkamadaha ha ahaato ama guddidaba ha ahaatee soo culayska badan idinka dhaco in dadka xog badan la siiyo, aqoon badan oo cashuuraha ku saabsan la baro, habraacooda lagu wacyigeliyo. qofka markuu aqoon u leeyahay wixii uu bixinayo dacwadba la gelimaysa wixii waajib uu leeyahay iyo wixii lagu leeyahay buu yaqaan. Cabdirasaaq Qaasin, telefishinka Saab, magaalada Berbera.